maxaabiistan oo tiradoodu ay gaarayso 26 qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa dhamaystay xukuno kala duwan oo u badan in si sharci darro ah ay ku soo galeen dalka Kenya. qaar ka mid ah maxaabiistan ayaa laga soo qabtay meelo kala duwan oo dalka Kenya waxaana ay aad u soo dhaweeyeen in dalkooda ay dib ugu laabtaan maalinta baritaa kadib dadaal badan oo uu sameeyay siyaasada safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ana qunsulka guud ee safaaradda mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi oo 2 maalin ka hor ay la xiriireen. Maxamuud Abubakar Maxamed waxaan ku xirnaa bil 15 casho gaarisa iyadoo saarteed anagoon safaaraddeena aan soo wargelinay Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi sida darteed anagoo meeshaas ku dhibaataysnay markii uu arinteena aan soo wargelinay 3 maalmood gudahood wuxuu nagu soo gudbiyay tikidadeenii ilaa iyo sheegay warqadeena goohoomadeeni meeshii dhibaatadii waan ka soo baxnay horta ilaahay baa maanta iskale mid kale safaaradda dawladda Soomaaliya u fadhida dalka Kenya oo magaciisa la dhaho Cali Bagadi baa dadaalkaas badan noo sameeyay boqolkiiba waa u mahadsan yahay mid kale ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya asaguna tikidadeena asaguna soo diyaariyay asaguna waa mahadsan yahay boqolkiiba annagu dhammaan dawladda Soomaaliya xubnaheeda kala duwan waa u mahad celinaynaa annagu shacabkeeda nahay waana noo dadaashay aad iyo aad waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dawladda aad iyo aad oo intaas burbur aan ku soo jirnay haatan noo istaagtay inay si fiican noogu soo istaagi doonto dadkeena meel kasta oo ku nool yahay ku dhibaataysan yahay dawladda waxaan ka codsanaynaa meel kasta oo adduunka safiir kasta oo jooga iyo dawladda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha inay dadkeena dib noogu soo celiyaan waana mahadsan yihiin boqolkiiba boqol annaguna insha Allah dalkeena dibadda nagu laaban waxaan rajaynaynaa in aan dalkeena si nabadgelyo ah ku joogi doono oo aan dal shisheeye hadda ka bacdi aan u laaban doonin maadaama aanan u baahnayn dal shisheeye inaan maanta ka bacdi aan u laaban magacaygu waa Axmed Iftiin Axmed waxaan ku xirnaa Kenya muddo dheer 2011 ilaa hadda markii la soo deeyay 7 sano oo jeel aan soo dhameystay la soo deeyay lambarkii aan helnay safiirkii markaan la hadalnay aad iyo aad buu noogu dadaalay wax waa noo qabtay isla markii aan la hadalnay 3 maalmood gudahood hadda aan hadlay ayaa ka mid ah Nairobi joogaan xor ayaan ahay safiirka ay garab taagan safiirku waa mahadsan yahay safiirku markuu wuxuu noo sheegay lacagta tikitka isla mar ahaantii inuu ka helay ra'iisul wasaaraha asna waa mahadsan yahay iyo madaxda kulli oo dawladda Soomaaliya. xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa iyaduna fududeysay sidii maxaabiistan Soomaaliyeed ay dib ugu laaban lahaayeen dalkooda hooyo sida uu sheegay siyaasada safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ana qunsulka guud ee safaaradda mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi oo maxaabiista kula hadlay xabsi ku yaala immigrationka Nairobi ee Yanya House. dadka afaysan isugu jira haweenka dhalinyarada iyo carruurta aad u yaryar ee ugu yaryahay sanadkii bar jiro ayaa waxay ku helnayeen magaalada Gaarisa xabsi ku yaala waxay isugu jireen dadkan maxaabiista ah oo meesha ku xiran dad sharci darro lagu qabtay oo Kenya lagu qabtay qaarkood 2 bilood ayay ku jireen xabsiyada 2 bilood 7 bilood qaar baa 10 sano ku jiray finally taleefon ayaa lagu soo wacay oo la ii sheegay in dadka Soomaaliyeed noocaas ah meeshaas ku xiran yihiin maadaama safaaradda ay joogto Nairobi xarunteeda xafiiska ay tahay iyagana ku xiran yihiin Gaarisa sidii ayaan maxaabiistii xiriir isla sameynay kadib immigration Kenya ayaa la xiriiray dadkaas wax dhibaato hadda lagu haysto jira ay ii sheegeen in xabsiyadooda ay dhameysteen dadkan hadda ay sugayaan in dalkooda dib loogu celiyo goohom ma haystaan waxba ma haystaan marka ra'iisul wasaaraha ayaan u sheegay dadkaas ugu dhaqsiyaha badan iyadoo loo jiro si ugu dhaqsiyaha badan kusoo baxaan dalka kusoo dhactaan marka maanta ayaa la keenay magaalada Nairobi isla beris wixii la diilahay maanta jumcada wuxuu ku wada magaalada Muqdisho iyagoo xor ah waxaan rajaynayaa insha Allah taala ilaahay intii dhibaatada soo martay in ilaahay bugooda quracad u mariyo dadkooda markay ku noqdaan inay noqdaan dadkooda maaragtay ka naxa ama u shaqeeya ama si nabad ah dadnida u noolaada iska daayaan tahriibta socodkan faraha badan mala yacni Soomaaliya sidoo hore maaha maanta
rajada aad ugu fiican tahay nabadgelyada aad ugu fiican tahay shaqada aad ugu fiican tahay rajooyin badan aa jiro shaqooyin badan aa dowladda ku mashquulsan tahay inay waa dadka marka waxaan rajeynaya insha allah ilaahay barisada salaam allah idinku geeyo garabkiina allah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe dadaal xoogan ugu jirtay sidii loo sii deyn lahaa maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dalalka caalamka iyadoo Kenya ay ka mid tahay meelaha laga sii daayo maxaabiista Soomaaliyeed ee dhameystay xukunada kala duwan. Umar Caaqil, SNTV, Nairobi.